نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحليه ليس الكذاب يعني بيلوغ ما أوسن أهانين الذي يصلح بين الناس midkii aan dadka dhexdooda oo xasalinaya midkii aan dadka dhexdooda oo maxayrada heshiisiinaya fayumni khayran yani malihiisa uu yahay oo uu rajeynaya yani khayr uu yahay yani beentas uu sheegayaba yani ay tahay in maxayrada maslaxa u tahay aw yaqulu khayran ama yani maxayrada uu dhahay khayr diridiisa odil yani ay tahay in yani khayr uu rajeynayo tusaalo kale haddii maxayrada muslimiin is dagaalaan yani dagaalkaas uu noqdo xalka kaliya yani lagu xalin karo in been loo sheego taasoo kalanto dambi kuma lehid iyo mid labaad oo ah in maxayrada haddii nafsadaada ay risk ku jirto maxayrada haddii nafsadaada ay khatar ku jirto xalka kaliya yani u baxsan karto ay tahay inaad been sheegto taasoo kalena dambi kuma lehid sidoo kale maxayrada haddii nin inaga isqabaan maxayrada khilaafkooda uu bato oo gurigaas yani lagu cabsado in uu dimo oo kaliya yani xalka kaliya uu noqdana in yani lagu xalin karo uu yahay maxayrada in been loo sheego taasoo kalena dambi kuma lehid haddii maanta guri dhisan nin inaga isqaba yani haddii isdagaalaan oo iskhilaafaan dagaalkaasina uu yahay kaliya yani wax lagu xasilin karo uu yahay in been loo sheego beentaasina ay noqonayso mid yani khayr ku jira taasoo kale maxaa yiraahdaa yani dambi kuma lehid yani dambi kama soo gaarayo